الحمد لله معلمين تو kale tiradoodu waa 20 runtii xiriirka ka dhaxeeya ardayda iyo waalidiintu aad buu sareeyaa halkan waxa jira gudida waalidiinta jira gudida macallimiinta jira halkan aan ku shirnaa maalmaha qaar kooda qadayna warbixin ama garanaysa aad buu xiriirka waalidkii dugsigu sareeyaa ardaygaanu garan weyno waalidku ma wacna telefoonadii waalidkooda ma ku albaabkooda waalidku ma wacna on spot waalidka noo yimaada tabartana dhibaaxa kula dhacnaa runtii xiriirka wasaaradda dugsiga buu sareeyaa dhammaan marada meesha ka wada buuxa waa og wasaaradda waxbarashada amaradeedu baan ugu fulina og waacda shaqaalaha dawladda og wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka ujeedo dhammaan wareegtooyinka wasaaraduna si strong ah oo dhameystiran bay halkan ma garanaysaa uga shaqeeyaan fardiinta ku saabsan waalidka ardaydu waalidow ardaydan aad dhasheen goob kastoo joogaanba gacantayda kuma jiraan waxa jira gudida ardayda siyaaxawaaga ah oo waxay soo sheegeen habeenkii gobolku markuu dhaco social media ardayda ay 10 habeenimo cadceed u soo baxdo waalidiinta way haystay inankiisu inay guriga jiifaan ma jiifaane 8 habeenimo Yurub iyo Canada iyo Mareykanka qaar cadceed u soo baxday bay ayaa ka horaarta ya wax ka wada wadaan iyo haasawa waxyaaba cajiibka ah oo ardaydu ma seexdaan aw lorayna ganka adduunka kalendarka ama time-ka kale duwan imka tusaalahan naga markay noo time-ka waa 10kii subaxnimo waxa laga yaabaa United States iyo Canada inay u tahay tusaalahan 2 habeenimo waxa laga yaabaa inta joogto tusaalahan Africa inanka Yurub joogay in 3 saac ama 12 saac ay kala horeeyaan ayaa halka doona ka hurdo tiri kara ha ogaadaan waalidku dad badan inaan ardaydoodii gacanta ku haynin waalidkuna xagga social media waxa ma fahamsana fariinta wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay sida uu socda tartan baa inagu furan bareefadada in la tartamayna in iskuulaadka bareefadada aynu ka badinaa inoo ballana in aynu ardayda dalka oo dhan meel gaarsiinaa inoo ballana in iskuulaadka extension loo sameeyo inoo ballana in ardaygeenu tartanka ardayda gobolada East Africa ama markuu Europe tago kale ama scholarship markay tagaan oo kale Sudan oo kale way tagaan Masar oo kale tagaan Turkiga way tagaan wasaaradda deerta oo ugu mahadnaqayna wasaaradda iskuulaana oo soo maraan ardayda labeentaana wayna weydiistaan horta ka daran aad baan ugu mahadnaqayna iyagana waxa noo qorshaysan mustaqbalka in iskuulkani noqdo xiddi ka ifaysa East Africa at the same time in the world and doonayno in ardayga ka soo baxay dugsigan uu daweeyo kuwa dhuuxiisa ku jira isla kuwa dhuuxiisa ku jira inuu wax u dhigo oo wax baran doonina maamulaan anigoo ku hadlaya afka macallimiinta ana maamulaha dugsiga Bilaa Ismaan Ismaaciil waxaan u sheegayaa dhammaan ardayda qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta leh horumarku wuxuu ku jira gacantooda waa mustaqbalkii aroorta hal la dadaalo waxa la barto wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh